براق اسمان سالي دا صلاة وحواي قبل معمدي اللي جوكتي قرقي هذا يكسو تكتيان هاي هو أبتيجي أسقف marka gabadhu waa gabadh iyadoo salaadii baxday guriga hooyadeena aad ay tiri maalinta dhan ay magaalada hooyadeeda ay tagtay casirka ay ka soo noqotay oo cid inta ay tageen magaalada dhaarta iska dhex joogtay casirka ay ka soo noqotay gaariga ay ku soo noqotay hooyadeed gurigeeda ma tageen cid aan u noqonahay tiri gaariga ay israacday ku soo noqotay waxay imaaday meeshii baasbaag ay imaaday baasbaag laamigi ay isoo qaadi lahayd ay ka wareertay marka ayadoo laamigi Mustalifa agteeda wareeganayso marna laamigi intuu raacaysa marna intuu raacaysa ninka Mustalifa aswaaridayna meeshii idaad joogi meeshaas shaqo ka haya KPR waaya soo meeshii joogaas gabadhiyo inta socdo dhinacyaha fiirinaas arki maxaad rabtaa cid inaan ka wareersanahay dhahdi cidina aan ku geynaa soo kacasday saas u wadi oo jidku asga u wadi markaas meeshii gurigiis agtiisa as geyn waxa sir gurigan soo gal gacantidaas qabtaa jaf ku sii gurigaas hoos ugu xiri marka gabadhi wixii isku sameyn kara isku sameey waa wixii maqrib casirka ka dambeeyo 12 wixii agteeda ka dambeeyo ilaa 2 saac bar intii aad meeshii ay ugu jirtay waa ku xiri waa ka tagay markaas ka tagay oo cashan ku doonaan ku soo qaada gurigan isii joogaas oo ku imaanay gabadhi marka waa qay marka hadaas hadashana qoryan dhuunta inta ka saaray tir hadaas hadashana markaan soo noqdo waan ku dilaa marka gabadhi waa cabsatay markaas ka tagay qaylisi ayadoo qaylinayso oo inayso mar guriga dhumbaatiga dhagaxayeynayso mar intuu ordayd guri dhaxdiisa colcolaadanayso qaylinayso dadka jiiraanka ku soo baxeen guriga dadka jiiraanka ku soo baxeen ninkii nambarkiisa haya liri ninkii waaridiye ahayo gaadka meesha joogi ninkii yaa wacay waxa jira gurigaada qof waa ku qaylinahay gabadha ka qaylina cunuga ka dhax ooynahay kaale guriga fur ninka guriga asaga furi marka asfur gabadhi dhacdaas meeshan beerkaas isiyay tir afkaan ku dhacay dhulkan ku dhacay ayadoo meesha taalaas binaanka ku soo jiiday meesha marka dadka ayadoo kor tuurihiin ay dad meesha jiiraanka ay kaseen dadka jiiraanka markay kaseen dadka jiiraanka qaadi guriga jiiraanka oo ligay aani li soo yeeri waxa leeyahay gabadhi waqtiga gabadhi raadinaysi oo cidi maanta cidi ma tagin waa daw martaal yiri aw casirkan asleed waa tan kaal arag meeshan lagu saxariiray kala taala hadda inta gabadhi oo bilq oo suuxsano caalagid u jiift aan u tagay oo KPR umada dhamaala ay tuurunta meesha KPR ta qaadi iyo aniga isla qaadnay istaalkan geeyna ciidana noola soo diri askara noola soo diri meeshii ribood laga qori wax kulli laga qori takhtar la geey maamad ugu horeyso baartay waxay tiri gabadha dhaawac labada dhinac ay qabtaa waraaqdii noola qori oo taariikh 29 noola qori baka saatisa suku intaasaan istaalka la jiifay oo sugayn markii noo dhamaaday qoraalka wixii dhan ay noo dhamaadeen oo salaadii 2 saac mijiibta aan sugayn waxay dhahdii gabadhi nin soo gala oo insiina waraaqihina sugo saa sugayn ninkii marka waan wayn ilaa 4 saac markay u sii socotaan biliista ku noqon biliista waa ninkii ana soo raacay waxa si alaabtan ana qaadanaa ee sugo waxaan rabaa bitri meeshii marka ninkii imaadi lahayo Dr. Ahmed waxa sir gabadh waan baaran bar labaadan ku celina baaritaan lama doctor inaan arkaan rabaa gabadh waan ku celina baaritaan waas baari gabadha marka hore waxay tireen xalaal baaraan dhahan meesha kastoo buuqaas ka yar dhacay markii dambana waa baari markaas baari bad ma jibta asqori waxaan dhan waraaqna si aan markaan bitri annaka aan ku buuxsan kuwaan aan ka qaadan meeshii marka hadalkii waa isdabam hadalkii waa diideen waxay dhan waraaq intaas ka leedihiin malaha socdo taga waan iska soo baxnay meeshii biliistaan imaanay biliistii wixii ribood oo la qori kara iyaga meeshii ku qorteen istaalka dhaxdiisa ay ku qorteen meeshii wixii kulli kombalaan wixii dhamaal gabadha sida ay tahay wax walba kulli waa qorteen statement dhan waa qorteen meeshii markii waa dhamaatay sidii waa dhamaatay wixii gabadhii taariikh 29 ay dhamaatay la leeyahay taariikh 20 taariikh 1 hadina waa la celi xali dhaystay waa la yeer telefoon ali soo diray gabar kareemka la joogto askarta taasiin ima soo dirin gabadhi kareemka la joogta siin soo dirtay waxay tiri istaala laga rabaa isoka istaala aada istaalkii marka aan tagnay oo meeshii aan tagnay waxaan noola geey cali malay naakala gabar kale office kale joogta waraaq yar saan dhaadi cali malay loo geey marka hore maxay dhaheen ilkaha goosaha gabadha laga soo fiirina cali malay loo geey cali malay u bitri asbuuxiya ninkan maxaa abitri asbuuxiya cali waan baxni naaga noola geey gabadhii gooska ay ka soo fiiriyeen markaan soo noqdeen qol kale ay galiyaan waxay dhaheen gabadh waan baarayna cali malay baari hadina mar labaad tii kareemka boolisteed tii kareemka la jirti oo boolista la jirto la shaqeynaysi labadaas baari
أنا إنك أسكري بنان كيف فديني marka ay baareen marka waxay dhaheen gabadhi way fiican tahay waxba ma qabto shar ma qabto gabadhaada waa ku fiican tahay ogow war gabadhaydu ma fiicna foomkeeda habeen hore aan isla jirnay oo taarraatan isgaal isla jirnay oo dhaawaceeda dhibkeeda asyaal waa u jeedeen foomkan ama kan asqoraysiin ma iga dhaaftiin maxaa siri boom gabadhan way fiican tahay hadda anana la qorihaya wadadan foom la qoray ma la foomka listiga wixii kulli way yeelanay dheen wixii kulli way yeelan ninka marka waraaqda biitirida midi maalintaased aad soo qaaday ninka marintaas maxkamadda la keenay waa taarqooya maxkamadda la keenay marka maxkamadda la keenay waxaa siri marka hore waxaa la yiri ninkii waa la weydiina waxa la dhahay nag noolama sheegin waxaas dhahay noolama sheegin markii dambe 6 saac la joogo oo aan dhahay gabadhii waxaan u rabaa istaal inaan u celiyo istaal marka aad u celi aad daawo u soo qaadan rabaa waraaqin idinka haysatiin meel wax ugu soo qorin meel aan ka bilaabo ma haye waraaq gabadhii istaal waraaq halisi marka waxay dhaheen sub isnaashan fariisas dhahay waraaqda ku siina saan meesh u fadhin u joogno u fadhi 8 saac 9 saac marka la joogaan iska tagni cid aan u noqoni waxaan la yiraahdaa meesh kareemka la keenay gabadhi kareemka la keenay gabadhi kareemka marka la keenay waxa laga qoray report iyada wax la weydiiyay wixii hal ii karta gabadhi kale oo kareemka la jirta aan wax ka qortay oo meesha la gashay wixii qortay alla waclan marka arintii sidaan arin kulul oo macna la aan u ogeyn shil waxa la yiraahdaa foomka hormaha foomkan kala gadaal dambe ninkii waabla dayba taarqo casirka waabla daybo bonda loo qaad lacag la dhigi marka waxay dheen meel walba waxa way qarash la dhigi ninka bonda loo gooy marka miskiin aan xaq lahayn oo shilin haysanin nin lacag leh hada intaas meel walba wax dhigtaas wax ka dhamaysanay cunugta miskiinka ay dhib ka qabto ay mandhicirka haysato xaaladana u dambeysay ay dhinac dhul dhigin oo saaxan mandhicirka haysato ninkina la deeyo lis hormarmaray hada wax dhib oo dhaco dawladda ay noo warsanin hadda wayda dadka isku dirays askarti soo qaad way u jeed habeenkaas wix meeshii yaali cunugtaas inay saxariir ahayd labadeeda lagood ay kala taale ay dhibana ahayd marka hadii wax dhib ay dhacaan ayada kale dadka isku lahaysay ayadoo baa wax dhib banaanka ka dhacay ayadoo baa dadka isku lahaysay ilaa cunuga dad dhal dur lagama soo qaadin laba qabiil ayada isku dilahays ayada laba qabiil isku dilay dawladda kay waxa ka codsanayna bilistaan inay wax noo qabat meeshka nyaji maaha waa meel hofiis oo dawladkeeda oo sarkaale inay wax noo qabato ma meel kinyaji oo dad iska leeyahay ma istaalkii dad iska leeyahay oo iyaga waraaqay isku xareysteen oo meel qorteen oo cali malaay maxaa meesha shaqo ku dhigi gabadhaas goosaha loo diray maxaa baaritaan labaad loogu celi kiisaan qabnaa taas dacwaan ka nahay ninkaas waxa gabadhaas mar labaad u baari kiisaan ka qabnaa dacwaan ka nahay ana nuuri macal musdaf taariikh 29 ya gabarniga xoogi oo laga afdoobi baasbaak oo qoryan dhunta ka saar oo yiri nin oo KBR rafaadi gabadha aniga waa dhib qabaa waa rafaasanta gabadhayda inay wax leey qabtaan rabaa marka isbitaalka la geey marka ninkan boona lagu soo deey ninka banaanka wareeganaya marka waxa weeye inay wax leey qabta aan rabaa inay ninkaas la xiro cumri xarag laga dhigo ninka banaanka wareeganaya waxa soo wataa boono as banaanka wareeganaya gabadhaydan daawo lama siinin waraaq waa waaye waraaqda sidoo sugay ilaa 8 saac isbitaalka soo tagay waraaqda muhiimkeeda daawo lagu siin lahay waan waaye marka dhibkaas ay haysto dawladda saas ogaat waxba wax noo suurtagalay mana waxay dawladda noo qabatay mana anaga nagu jiiftaa dawladda waana basbaasayn anaga kuma bagalna cunugayna waa dhib qaba xal way saaxani ways dhibaato sheeganay waa kiliya ima dhicira haysataa markaan waa saaxan way labada habeen baa laga hurduway xalay habeen hore dhiba haysa gabadh dawladna waxa noo qabanayso uma jeedna aniga waxa la yiraahdaa Maxamed Buule waxaan dhashay 1940 aan dhashay halkaan ku dhasho Kenya ku dhashay ilaa Babero waa jooga waliga TV ma tagin maanta dhibkay keenay ay keenay aan garan waay ay keenay cadaalad darro ay keentay cawashaan way maaday gabar yar oo 15 jirta aanin xoogi mid mar waa reeb marna waa laba heshiisi marna waa afdub oo qafl afdub tan ma aha robbery ma aha ma aha reeb ma aha laba heshiisi guri gashi ma aha waa xoog afdub oo guri lagu xirtay gabar 15 jirta iskuul leeyahay iskuulka hadan dhiganayn oo 15 jirta oo caruur ah aanin askari oo KBR qori ku afduubay gurigaas geey wax isku soo beer ku soobi waa kufsaday waa ku dhaqday gurigaas ku xiray waa isaga tagay
anaga liif aan u aragnaa moogi ninka waa la day 200 boon laga dhigaa Allah waa la day 29 liif dheer oo ninka waa aragnaa moogi anagu ma aragna boon caadi ah taas waxa way qaraabo ku ninkan qows ka dhashay qowsana labadayna qows isma haysan Soomaaliya maad bilaysa qows noqotay ayada wax bedeli meel hebel tigay leedahay waa in xiraad meestigtay leh waa ninka meesha joogo usku caashaad nooga dadkan u dooda xuquuqda aan joogo marka waxaan codsanaynaa oo anaga codsanaynaa markaatida waa joogtaa gabadha guriga marka la furay dadka soo xiraa joog dadkii markaatida ha joog wax la weydiin ma nooli yeeri ma waxaan ka cawanaynaa bilayst mar daawa loo keeno dadka daawada sun ay soo bedesho kaliya ka iska bad sun aad noqda codsiga waxaan diraa markaatiyaalkoo taagan wax anaga la weydiin ajir liif dheer ninkilsi uma aragna aniga taas uma arka boon uma arka liif dheer waaye taar 29 dhahay nama anfacdo bilis dadka isku dili ehelkayga wiil ka dhashay aniga ehelka wiilka ka dhashay eedamahin aniga ehelkayne waaba ninka markaan aragna si kala la noqona ninka suuq lagu sii day taariikhdi waxa badan waxa jirta waxa joog markaatiyaalka joog kuwita waa arki jirnay 10 bir kadib 5 bir kadib ay kana arki jirnay wixii waa laga tagay xornimada ku socolahay liif dheer aan aragnaa waxaan rabnaa anaga kiiska taar 29 lama anfaca bilis dadka isku dili dibka dhaca oo dadkan ka dhaca oo daaweyn waa bilis waa waxaan codsanaa aniga in maxkamad in kootiinka ninka lagu soo celiyay la soo qabta hadii kala dadka bilis waa isku dili ayda isku dili qabiil isdil ma isku dilis dibanaha meeshin wax ka qaban leen waa ka qaban waynaba waa la qaban way meel walba waa la qaban way rokada saaran waxaan hortaagan waraaqda gabadha lagu cabiray in la soo cabiray la keenay booliis anaka noola yeeray staadmaynka nagala qoray staadmaynkayna sida ma aan si kale loo bedelay hooyada gabadha dhashay waraaqdii ay isbitaal ka soo qaadashay la bedelay daktarka sida ma aan si kale waraaqdaas u keenay sidii lagu helay in si kale loo keenay booliista markii la keenay arrinta la bedelay labada waraaqood ay booliista ay yeelaan jirto wadan hortaan watan ayada awadna malyan anaga xagga hooyooyinka mandhaliya waan waakiyan ka hadlayaa aabaheed waa waalin yahay gabadha qof oo kaamil ma aha xoog waxay dhahday markii aan warsada gabadha qoriya inta liiga saaray qoriga dushaad saarnay waa soo wareejin intaas iga saaray afkaas iga saaray waa ijiiday waan wareeray cidayna ma aqaanay dhahday gabarta adeeda waa 15 jir qof kaamil ma aha waraaq waali kaanana la dhahay waalida ummadda oo dhanba ma wadata dadna waa qafiif dadna waa waali run oo dawladda og tahay qofkan waa qafiif laakiin waali oo ord ma aha waa qof marna la deynaa marna nabaraas qabana waxaan codsanahay dawladda inay wax ay qabato accountiga iyo national liiga qabta ninkaas far kula dawladda waxay u dirtay ninkaas gabdhaha inaad farxumeey looma dirin waxa loo diray in securitykaas caliyay waxa la yiri masaajid col hadaad dhac masaajida lagu cararaa haddii dib aas imaado col hadaas imaado hadda maanta anaka dawladda Kenya hadaan nahay security aan haysana waa askarta haddii aan ilaalinayn anaka nagu soo noqotay taa jawaabdaas national government iyo waxaan waynaa accountigan ka rabnaa arrinta ayada inay gudbiyaan oo wax ka qabtaan oo ninka gudaha lagu soo celiyo